ما والله ما قرن كريوان مشون سبابن كنا قلنا نقل فتيديو شامبان وهين labadaas gudaha ku jiray saddexdeeda kalena dibadda aan uga soo baxno la dhaanyar fadhinay meeshii soo dunto isku baabaado man aragno marka noqosho dambe ima kuma taba jirno laakiin khasaq baa weydiisanay wahay kan dhaama inay noo keenaan inna lillahi wa inna ilaahi raaji'uun godkani waa kay macdanta ka qodanayeen mawliid iyo sidoo kale nimcaan oo ah labada qof ee ku geeriyooday alla naxariis janna ka waraabiye godkan ay dahabka ka qodanayeen ee ku yaala deegaanka Hadley ee ka tirsan gobolka Gabiley safar dheer oo ay nagu wehelinayeen qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka magaalada Gabiley iyana ku gaarnay deegaanka Hadley ee gobolka Gabiley waxaanu la kulannay bulshada kala duwan ee deegaanka ku hawa sidii godkan looga soo xariistay nimcaan iyo sidoo kale mawliid nasiib wanaag saacado badan oo meydkoodu alla naxariis janna ka waraabiyo ku jiray godkani lagu guuleystay in meydka dibadda loo soo saaro dadaal dheer ay galeen dawladda iyo sidoo kale bulshada qaybaheeda kala duwan ee deegaanka Hadley meydka labada marxuum loo soo qaaday isbitaalka guud ee magaalada Gabiley ee caasimadda gobolka Gabiley warna waxa ka warbixiyay geerida naxdinta la sida u dhacday goob joogayaashii godkani kala shaqeynayay allaha u naxariistee nimcaan iyo sidoo kale mawliid waxaana yiraahdeen assalaamu calaykum marka hore horta tacsiibaan u dirayaa labada marxuum eheldoodii iyo qaraabadii ilaahay samiriyay baan ka siiyay iyagana ilaahay u naxariisto godka waan ka wada shaqeynay meesha shambaan ahayn labadaas gudaha ku jiray saddexdeeda kalena dibadda aan uga soo baxno la dhaanyar fadhinay meeshii soo dunto isku baabaado man aragno wax kale oo faahfaahin oo laga bixin karo ilbiriqsi ayay ahayd daymadan daymoonnay iyo gariirka meesha ka baxay meeshii baabaasanoo nala meeshii kale la siman maaragnay wali haddaba taayimkana laga soo saaray ilaa 9kii iyo barkii habeenimo ayaa laga soo saaraya 3dii iyo barkii bay ahayd markaas 3dii 40 meelahaas ay noqonayso marka uu soo dumay meesha marka faahfaahin kale oo ka bixin kartaaba muujisada dhacday ma wallahi ma garan karayo meeshaan sibaaban ku noqonaa naga lafteediyo tawbad fajaca oo laba falaga wali hadda waan naxsanahay saacada imika tagay waa 10kii wax imika saacada soo dhacayna waxay ahayd 3 iyo 40 daqiiqo markaan saaw eegaano inankan iyo Jamaal ayaa ceelka markaa hore ku jiray iyo inamada dhintay mid ahaan midna aanu dhakadiiba joogo ciidiiba qaadqaaday ka bacdigato inankan iyo Jamaal baa markaa isagoo dhexda ku soo jira inankan u bedelay oo ciidda ka qabanayay ciidii aan qabanayaan uu soo diray isagu Jamaalna kumbarasoogu u dhiibay inanka kale dabeeto dhexda isagoo soo maray soo dhaaqday meesha oo nimcaan soo baxdo wax oday markaasaan ugu dambeysay wax kala garasho anaga inteedii joogtay meesha markaa wax laga sheekeyn karay wax la qiyaasi karo midna ma aha imika waxay ku suurto gashay dadkoo badnaa iyo caqaf oo la adeegsanayay waxa la bilaabay 3 iyo 50 daqiiqo 10kii iyo 10 daqiiqo dibadda loo soo bixiyay imika intaa u dhaxaysay waa shaqeynayay marka noqosho dambe ima kuma taba jirno laakiin khasaq baa weydiisanay wahay kan dhaama inay noo keenaan dadkii gurmadka ku yimid baanu nahay dibadda gudun baa ku dumay wax sabab kale ma ilahayn way shaqaysanayeen ma shaqaystayaal xoog maalay ahaayeen waxaan leenahay qoysaskii qaraabada ay ka baxeen sabir iyo Allah ka siiyo mayayanu 3 iyo barkii baan aniga warkaasi soo gaaray walaal wala qudayo walaalo kulli dadaal muu yareyn dawladuna way ka soo qayb gashay xildhibaanadii baa yimiday waxay timiday wasaaradii macdanta booliska ayaa nagu soo horeeyay dadkii deegaankuna way ka soo qayb galeen dadku jarafada iyo xoog maal bay ahaayeen way shaqaysanayeen dabeedna sidaas ay hawshaasi ku dhacday dabeedna waa la soo saaray alxamdulillah waxa loo soo saaray dabeed majarafada iyo waxa la isticmaalayay iyo hadba wixii la adeegsan karo cagaf bay joogtay meesha cagaftu waxa ku dhaadhici kari weeyday halkii hoose dabeedna dad baa xoog baa laga soo saaray rag baa soo saaray oo xoog baa lagu soo saaray walaal asiga Hadley mursal maxamed jaamac iyo sidoo kale Khalid Ismaaciil Hore oo bulshada reer Soomaaliland farin u diray inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun waxaanu ku sugannahay deegaanka Hadley ugu horeyn runtii waxaan halkan ka tacsiideynaa labada marxuum ee halkan ku geeriyooday qoysaskooda eheliyadooda
iyo dadka ay ka baxeen waxaan leenahay samiri iimaan waasaca ilaahay naga wasiiyo dhammaanteen iyagana waynu u ducaynaynaa wax ilaahay uga barin lahay jannatu firdawsi alaclaa ka waraabiyo halkan waxaa ka dhacday mashaqo aad u weyn hawl culus baa runtii ka dhacday god ay nimankaa muruqmaalkii ay qodanayeen muddana ay soo qodanayeen baa runtii cabirkiisuna aad u dheeraa ayaa runtii ku dumay deetana waxay keentay in ay toodi noqoto laba ruuxna ay runtii ku quri waayaan waxaa ilaahay mahadiya inuu ilaahay nagu guuleeyey in meydadka labada marxuun la soo saaro markaanu soo baxnay magaalada ka soo baxnay waxaan u soo cararnay runtii inaannu u kuurgalno xaaladda deegaanka iyo meesha hawshu ka dhacday iyo in gurmad runtii loo fidiyo si waxii markaan ogaano haddii wax badan looga baahdo gobolkii iyo dalka intiisa kaleba in warbixin runtii aanu halkan ka dirno waxaa alxamdulilah inaan halkan la kulannay iyadoo la soo saaray waynu ku samraynaa waynu u ducaynaynaa waynagaga sii adkaan lahayd oo sidaan imika waxa weeyaan aynu wada joogno maynaan wada joognayn saacada ka hor xaaladdiinu san iyo may ahayn wejiyada dadka halkan taagani may ahayn intii la baadigoobayey ee la gaadhayay waxa weeyaan meydka labada marxuum runtii deegaankan iyo deegaano kaleoo dalka ka midaba inta badan waxaa ka socdaa in dadku ay isku dayaan inay la soo baxaan macdanaha noocyadooda kala duwan waxayna tusaysaa runtii dhacdadani way soona noqotay waa dhacdadii labaad ee caynkana ee deegaankan ka dhacda haddaanay tii saddexaad ba ahayn waxay noqonaysaa runtii inaan casharra ka baranno wax iska weydiinno ka dawlad ahaan ka gole deegaan ahaan annagana lafteedu aanu dib wax iskaga weydiinno dib u ka tashanno annagoo ka talagelinaynaa dadka howlaha ku lugta leh deegaanadan laftooda iyo dadka muruqmaalkaa iyo dadka kale ka shaqeeyaba sidii waxa ugu muhiimsan badbaadada nafta marxuun mawliid iyo nimcaan ilaahay horta samir yimaad dhammaanteen baa inaga siiyo guud ahaanba laba waxay ahaayeen runtii howlwadeennada halkan ka shaqaynayay ka mid ah laba muruqmaala runtii oo qoysas biilinaya sida runtii xogta ay ehliyadii dadka ay noo sheegeenna mid ka midana runtii aroos haa dhowaan runtii aroos galay waxa weeyaan taasna horta waa masiibaa dhacdo de waa ku cibro qaadashay leedahay waxay leedahay inayn lagu waana qaato inaan naftu meel la jirin qadarku mar walba meel walba qofka ugu imanayo waa runtii niman de arsaaq de waxa weeyaan meesha ka dayayay bay ahaayeen waxa weeyaan lagu dhiibsan maayo in waxa weeyaan qadarkaa ku dhacay iyo sababteeda in alla mooyaan cid kale aanay lahayn laakiin wixii ka dambe taxadar bay dadka bini'aadamku leeyihiin runtii bal koley dawlad ahaanna annaguna waan isku noqon wixii waxa weeyaan godku runtii markaannu aragnay god aad u dheer buu ahaa waxa weeyaan gidaarka laga qodaynaa runtii aad waxa weeyaan baaxaddiisu weynayd oo buur hoosteed ahayd waxa weeyaan arrintaasna sidii looga taxadari lahaa koley talaa laga yeelan doonaa waxay ahaayeen shaqaalo u shaqaynaya dhinacna shirkadda macdanta koley marka meydadka gebeley la geeyo arrinta waa laga xaajoon doonaa shirkadda u shaqaynayeen iyo ehliyaddu waa la iswada arki doonaa go'aanka dambena markaasaa la isleegi laakiin waa masiibo dhacday oo qof walba oo bini'aadanna ku dhacaysa meel kastoo joogana masiibada alle qofna kama baaqan karo haddii wax weyn alla kuu qadaro wayan la xaajiyay telefishinka